kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwareed media qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah macallimiin shabaab u sameyn jiray qaraxyada oo ku leeday Jubbada Dhexe madasha xisbiyada qaran oo ka hortimid qodob kamid ah sharciga doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya oo muddo kororsi sameynaya taliyaha ciidanka dhulka oo booqday xirada Harqabowbe afwaaki oo ballan qaaday inuu dib u xoojiyo xiriirka Itoobiya kala dhaxeeya fanaanka Axmed Dey Abubakar Allah u naxariisto ku geeriyooday Muqdisho iyo diyaarad ku burburtay garoon diyaaradeed oo ku yaal Jamhuuriyadda Kazakhstan haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 28 December sanadka sii dhamaanaya 2019 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo sheegaya inuu halkaasi ka dhacay qarax xoog leh oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka qaraxa ayaa ka dhacay xaafadda Hargeysa Yari oo ka tirsan degmada Jilib waxaana la soo sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray rag ka howlanaa diyaarinta qaraxaasi goobjoogayaal ayaa caasimadda Orlen warkan daawacday u sheegay in qaraxa uu ka dhacay guri isla markaana uu ahaa qarax gaari oo la diyaarinayay sidoo kale dadka aan la hadalnay ayaa sheegay inay arkayeen meydadka dad guriga laga soo saarayo dad ku sugan deegaanka Hargeysa Yari ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay goob lagu farsameeyay miinooyinka dhulka la geliyo oo ay ku sugnaayeen in ka badan 10 macallin oo kuwa shabaab qaraxyada u sameeya ah warar soo baxaya waxay sheegayaan in goobtaasi uu ku dhacay gantaal diyaarad soo riday inkastoo aan wali la xaqiijin karin waxa uu ka dhashay qaraxaasi oo dadka deegaanku ay ku kala micneeyeen in ragga qaraxyada sameeyay ay wax ka qaldeen iyo in gantaal lala beegsaday xarunta ay shaqada ka socotay saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa uu jiro balse aysan ogeyn inta uu qasaaruhu leeyahay wararkii ugu dambeeyay gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in ugu yaraan 5 dagaalame oo ahaa kuwa qaraxyada gaadiidka ku diyaariyay ay halkaasi ku dhinteen 7 kalena ay dhaawacyo culus ka soo gaareen halkaasi habeenka hore ayay ahayd markii sidaan oo kale al-shabaab uu ku qarxay qarax gaari ay ku diyaarinayeen deegaano hoostaga degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug waxaana qaraxa ku dhamaaday ku dhawaad 10 maleeshiya ah oo qaraxaasi farsameeynayay wararkii ugu dambeeyay ka helina degmada Jilib iyo gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in halka uu qaraxu ka dhacay ay joogaan dagaalamayaal badan oo ka tirsan al-shabaab kuwa oo baaraya sida ay wax u dhaceen waxaana loo ogolay in halkaan ay gaaraan dadka deegaanka madasha xisbiyada qaran ayaa ka hortimid qodob kamid ah sharciga doorashooyinka qaar kamid ah xildhibaanada madasha xisbiyada qaran ayaa shir xasaasi ah oo looga arinsanaya sharciga doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ee dalka ku yeeshay xaruntooda ku meel gaarka ah Muqdisho kulankan ayaa waxaa shir gudoomiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaamiyaha madasha waxaana sidoo kale ka qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xashan Sheekh Maxamuud oo hadda ah gudoomiyaha xisbiga UPD madasha xisbiyada qaran ayaa walaac ka muujisay isla markaana aad uga soo horjeeda qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo muddo kordhin sii kara xildhibaanada haddii la ansixiyo qodobkaas waxa ku qoran in haddii ay keenaan duruufo adag sida amni darro baahsan oo dalka ka dhacdo oo baarlamaanku waqtiga kororsan karo muddo 6 bilood ah madasha xisbiyada ayaa doonaysa in qodobkaas laga saaro sharciga doorashooyinka qaranka waxaana ay qorsheynayaan inay mooshin ka keenaan sida xubno kamid ah u sheegeen caasimadda Orlen haddaba maxaa ku qoran qodobka 53 ee dib u dhaca doorashooyinka muddada xilxeynta golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxda la doortay wuxuu shacabka u igmaday muddo cayiman oo ku xadidan qodobka 60aad iyo 90aad ee dastuurka muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib u dhici kartaa oo kaliya haddii ay jiraan duruufo adag oo saameeya dalka oo dhan ama kala bar oo aan suurtagal ka dhigin in doorasho la qabto duruufaha adag ee ku xusan farqada labaad ee qodobkan waxaa ka mid ah nabadgelyo darro baahsan oo dalka ka dhacda aafooyinka dabiiciga sida dhulgariirka cudurrada faafa abaaro fatahaadaha wabiyada daadad xoog badan iyo duufaano iyo wixii la mid ah iyo arrimo farsamo oo aan la'aantood doorashada qabsoomi karin 4 xaaladaha lagu sheegay farqada 3aad ee qodobkan haddii ay ku kooban tahay hal degmo gobol ama dowlad goboleed iyo wax ka yar
kala bar darka dib u dhaca doorashadu wuxuu saameynayaa kaliya goobaha lagu xusay farqadan. Dhanka kale xildhibaanada Soomaaliya ayaa la ogaaday iyagoo 3 sano jirsaday in muddo kororsi ay sameynayaan. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in iyadu ay ku beekan tahay 3 sano kadib markii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay xildhibaanadu doonayaan inay sameystaan muddo kororsi sharci darro ah. Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka horyaala uu xeerinayo muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka. qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka wuxuu xeerinayaa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka wuxuuna si cad uga hor imaanayaa qodobka 60aad iyo 91aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo mid walba madalsan tahay 4 sano. 3 sano kadib halka nagala sugayay inaan dalka gaarsiino doorasho qof iyo cod ah inaan maanta lagu mashquuliyo doorasho lama qaban karo in muddo kororsi aan sameysano waa nasiib darro aad u weyn ayuu ku tilmaamay xildhibaanka qoraalku soo saaray. hadalka ka soo yeeray xildhibaankii madasha xisbiyada qaran ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya waqtigu u haray uu maraya gabaabsi. markaana Galmudug taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka sareeyo guud Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ay weheliyaan saraakiil ka mid yahay taliyaha qaybta 12aad Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa booqday dugsiga tababarka Harqabub oo ka mid ah dugsiyada qaybta 12aad fadhigiisuna yahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. taliya Cabdixamiid ayaa saraakiisha dugsigan ka dhageystay warbixinta hawsha xeradan ka socota muddada dhowr ka bilood ah iyo heerka aqooneed ee ciidamada carbiska ku jira oo marayay heer gabagaba ah. ugu dambeyn ayuu ku booriyay taliyaha ciidanka dhulka maruu la hadlayay askarta tababarka ku jirta waxa uu u sheegay inay isku diyaariyeen inay dalka difaacaan iyo inay qayb ka noqdaan dib u kabashada dalkeena hooyo isagoo ballan qaaday in ciidanku heli doono dhammaan agabka ka dhiman. dhanka kale ciidamada ammaanka Galmudug ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga magaalada Dhuusamareeb iyo Cabudwaaq. ciidamada ammaanka ayaa degmada Mirirguro Dhuusamareeb u jirta 30 kiiloomitir una dhaxaysa magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb waxa ay ku soo qabteen 9 qof oo lala xiriirinayo qorsheynta fal amniga lid ku ah. 9 qof ayaa saarnaa gaari raaxa ah oo loo yaqaan Saaruf. dhanka kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa degmada Cabudwaaq ku xiray 4 qof oo lala xiriirinayay inay la shaqeynayeen ciidamada New Booliska dowladda deegaanka Soomaalida kuwa lagu eedeynayay inay sabab u ahaayeen bilowga dagaal deegaanka Boorancad ee gobolka Doolo ku dhexmaray ciidamada New Booliska iyo dad shacab ah. dadka la soo xiray ayaa xogaha u gudbinayay sirdoonka deegaanka Soomaalida. dadkan la soo qabtay ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii u dambeeyay dagaal beeleed uu ka aloosnaa xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. markaana Itoobiya madaxweynaha Eritrea Siyaasi Afwerki ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono wada shaqeynta kala dhaxaysa Itoobiya isagoo ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqasho 2 maalmood ah oo loo arkay inay timid xilli hanaanka nabadda labada dal uu gaabiyay. Afwerki ayaa Arbacadii Addis Ababa ku tagay booqashadii ugu horeysay tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay bilaabidda heshiiska labada dal. Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudda ka dhacay 1998 ilaa 2000 kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 oo qof. Afwerki ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta wanaagsan ee lagu sameeyay dalka ay dariska yihiin Itoobiya. waxa uu ballan qaaday madaxweyne Afwerki inuu ka shaqeyn doono si xoogan si dib loogu helo fursadihii ka lumay 3 jiil oo labada dal ah loona xoojiyo bogo cusub ee wada shaqeynta labada dal sida uu qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea. dowladda deegaanka Soomaalida ayaa shaqada ka joojiyay TV-ga Universal ee ka howlgala halkaasi. xafiiska warfaafinta ee deegaanka Soomaalida ayaa waraaq shaqo joojina u diray bahda Universal ee dalka Itoobiya. dowladda ayaa ka xanaaqday warbixin uu wariyaha Universal TV ee dalka Itoobiya ka diyaariyay banaanbixii salaasadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Jigjiga. haddaba maamulka TV-ga Universal waxa uu ku xun yahay warqadaasi shaqo joojinta ah ee aan waafaqsaneyn sharciga maadaama Universal ay haysato ruqsadda ay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya siisay warbaahinta caalamiga ah. ugu dambeyn waxaan xukuumadda deegaanka Soomaalida ku boorinaynaa ilaalinta madax bannaanida saxaafadda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay TV-ga Universal maamulkiisa.
markaana daawadayaal warkii dibadda diyaarad ayaa ku burburtay garoon diyaaradeed ku yaal Jamhuuriyadda Kazakhstan ugu yaraan 15 ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad ay saarnaayeen 100 ruux ay ku burburtay garoonka diyaaradaha Jamhuuriyadda Kazakhstan diyaaradan ayaa ka soo duushay magaalada Al-Amid iyadoo ku sii jeeday magaalada caasimadda ah Kazakhstan diyaaradan oo ay saarnaayeen 95 rakaab ah iyo 5 shaqaale ah ayaana la ogeyn sababta keentay inay dhulka ku soo dhacdo wararku waxay sheegayaan diyaaradu ay ku dhacday dhismo 2 dabaq ah waxaana ka tacsiyadeeyay burburka diyaaradan madaxweynaha dalka Kazakhstan daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen galwareed media haddii aan ugu cusubtahay fadlan daawada subscribe channel